kulanti wacan meel walba aad ka joogtaan caalamka caawa muuqaalkan waxaan uga hadli rabnaa waxa aad u soo badatay dadka caanka ah ee isqabo markii ay kala tagaan hadallada aadka u xun ama u qalifsan ama u kulul ee hawada isu mariyaan maxaa keena sida aan ognahay dunida aan saarannahay kaliya ma aha waxa isguursado ama xiriirka yeesho dadka caanka oo kaliya maxaa keena laakiin in dadkaas kale hadalkooda aan la maqlin kuwana la maqla oo tusaalooyin aad u weyn oo aad doonaya inaad wax ka ogaato intan anigu ka ogahayn adiga aan kuu sheego fadlan haddii ku cusub tahay channelka subscribe inoo dheh noona sii share garay si aan u helno boqoro adigoo kala ah aad baad ugu mahadsan tahay haddii aan hore u sii galo waxa aad u badanayo fanaaniinta ama youtubada isqaba markii ay kala tagaan maxaa dhaca intay isqabaan waxaan aragnaa waxyaabo qurux badan oo ay u dheer tahay farxadda waxay wada wadaagaan wax walba oo labadooda ka dhaxeeyay inay bulshada u soo bandhigaan adiga isweydii tan ay raadinayaan ma fayuus kaliya mase noloshoodii ayaa sidaas ahayd mid ayaa ku hoos jirto oo ah haddii shalayna la tusayay wax qurux badan si daqiiqada ah ama waqti kooban ama bilal maxaa ku keena inay isbedelaan sida aad og tahay ama aad ka warqabto ama aad daawato in badan waxaan maqalnaa in runtii dadka youtubada ama dadka fanaaniinta ama dadka caanka ahba markii ay kala tagaan hadallo runtii xataa youtubada qaar ay ka helaan barnaamijyo badan si ay u tabiyaan taasi oo ay ugu wacan tahay in marka hore ayka ay ka fiirsanin waxyaabaha ay usoo bandhigayeen bulshada ikoo inta badan tusayay farxadooda oo kaliya iyo waxyaabahooda u qaaska ah ayna u qarsaneen wax iika u gooni ah laakiin ma isweydiisay dunidaani intaan la eego aadka u weyn inay kaliya ahayn fanaan ama youtuber dadka isguursada way dhici kartaa dadka inay isdagaalaan ama ay iskhilaafaan laakiin maxaa keena dadka caanka ah oo kaliya in arintooda ee banaanka usoo baxdo iikane ay mar walba dhan isku jiitaan iyadoo aan ognahay in dad badan oo is arooso masna ay kala tagaan aana xumaantooda iyo samaantooda aan la maqlin taas waxaa sabab u ah dadka noloshoodii runta ahaa baraha bulshada keenay iyagoo ku faanaya ama iyagoo dana gooni ka leh markii ay isdagaalaan maalmo kadib waxaa maqlaysaa hadalla aan dhagahaaga jeclay indhahaaga inay arkaanna iska daay waxaa wada aragnaa mar walba muuqaalo alla leeyahay lamaanihii qarniga laakiin markii ay kala tagaan adiga magac ma u bixisay aniga kolley ma ogi siday wax u jiraan laakiin badanaa waxaan dadka ku waaninaa horena muuqaalkaygii hore waan ugu sheegay haddana aan ugu sheegi doonaa waxaa adiga iyo marwadaada kuu qaaska ah ee farxaddiina iyo hoolihiina qaaska idii ah hala wadaaginina bulshada waayo waxaa qasab ku ah haddii shalay aad la wadaagtay wax walba oo marwadaada si gooni aad u siin lahayd ama ula wadaagi lahayd in wixii xunna beri aad bulshada ula wadaagtay sida xilligan dhacayo maqlaysay jaceylkaaga iyo xiriirkaaga istakfurullah hadda marowna taasi oo ah waxyaabo ceeb ah waa dad nolosha wadaagay waqti wada qaatay in markii kala tagaan ay iscaayaan waa waxyaabo runtii dhagaha aan jeclaysanaynin shalay haddii dhagaha iyo indhaha wax qurux badan aa ugu tusaysay isbedelka nolosha ku imaado waxaa rabaa inaad u adkaysan kartid ninka waxaa rabaa inuu marwadiisii shalay ee maanta ay kala tageen in wax walba oo xumaan iyo wanaag maray inuu iska laqo haddiiba kala tageen uuna u ogaado inay tahay walaashiisa sidoo kale gabadhan waxaa laga rabaa haddii ninkeedii ay kala tageen xumaan iyo wanaag walba labadooda ka dhaxeeyay inay iska laqdeen oo ogaato inuu walaalkeedii yahay wax walba waa ay dhammaadaan laakiin waxaa qurux badan inay ku dhammaadaan si qurux badan waxaan waaninayaa cid walba oo runtii noloshiisa baraha bulshada kusoo bandhiga inuu ka waantoomo halkaas ayaan warkayga ku koobayaa waxaan ugu talagalay muuqaalkan qof walbo af soomaali ku hadla inuu wax kala baxo kii hore u haystane inuu kusii kaawdo waad mahadsantihiin haddii aad ku cusub tahay janaalka sidaa mar walba kuu sheego adigu waxaa tahay garabkayga aniguna waxaa ahay wehelkaaga waan isku baahannaha xilli walbo subscribe-ka waa xaggaaga anigana wixii gudbinta waa xaggayga waad salaamatiin habeen qurux badan